wasaaradda arrimaha gudaha waxaan uga mahad celinayaa inay soo dhamaystireen hannaan cusub oo loogu yeeray dhab u heshiisiin kaasoo laga qaybgeliyey qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed kaasoo la keeni doono golaha wasiirada si loo ansixiyo kadibna iyaga iyo dhammaan inta la shaqeysay ugu shaqo galaan waa u mahad celinayaa waa shaqo qoto dheer ay ka soo shaqeynayeen waxaan aaminsanahay sida halkan aad saddexdii maalmood aad isla joogteen aad ku aragteen inay dalka wax ka tari doonto haddii Ilaahay yiraahdo halkan abwaan kala soo istaagay isaguna abwaan guure uu joogaa wuxuu yiri haddii aan qabyaalada la iska dayn dalku dhibaatadan ayuu ku sii jiri doonaa muhiimaddu marka waxay tahay inaan isla fahmno mid wuxuu leeyahay alifkii bay ka halowday abwaan kale wuxuu leeyahay qabyaalada dhibaatada ah mid kale wuxuu leeyahay musuqmaasuq ayaa halaysan ama dhibaato ku ah dalka haddii hormuudka Soomaaliyeed oo gabdhaha Soomaaliyeed ah ay kala qaybsan yihiin haddii gabdhaha Soomaaliyeed iyagu ay kala qaybsan yihiin oo dhalinyaradu kala qaybsan tahay oo culimadu kala qaybsan tahay oo siyaasiyiintu ay kala qaybsan tahay oo cid waliba ay aaminsan tahay fikir ka duwan cid kale su'aasha aan isweydiinayna waa maxay marka waxa ay tahay maxaan ku heshiinaa maxaa dhabka dhigi kara hanaanka dhab u heshiisiinta ay wasaaraddu inoo keentay maxaa naga halaysan maxaa qarin kara ceebta ummadda maxaa iftiimin kara sharafta ummadda Soomaaliyeed maxaa soo dedejin kara inay dadka Soomaaliyeed midoobaan mar labaad waa inaan aqbalnaa marka hore su'aashaas si looga jawaabo inaan fahamno waxa naga halaabay waxa naga halaabay wixii isku keenhayn jiray waxa naga halaabay wixii ceebteena qarin jiray waxa naga halaabay wixii dumarka iyo caruurteena u hilin jiray waxa naga halaabay wixii adduunyada ku kalifi jiray inay noola dhaqmaan si sharaf leh waxa naga halaabay wixii dawladaha dariska u seegi jiray cid aan nahay waxa naga halaabay oo naga dubay dawladnimadii waxa aan u baahanahay inaan ka dhameeyno marka waxay tahay dalkan dawlad xoog leh oo shaqeynaysa oo ummadda Soomaaliyeed ka wada dhaxaysa oo qabyaalad iyo musuqmaasuq ka madax bannaan dib loo soo dhiso in marka dawlad Soomaaliyeed la soo dhiso shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu bishaareeynayaa inay macquul tahay waxa kale oo ugu bishaareeynayaa inaanay jirin luuq loo soo mari karo si loogu laabto meeshii sharafta leedahay kan mid lixdameeyadii waxay u baahan tahay dagaal dheer waxay u baahan tahay shaqo soo jeed u baahan waxay u baahan tahay dad daacada waxay u baahan tahay musuqmaasuqa laga fogaado waxay u baahan tahay in qabyaalada laga fogaado waxay u baahan tahay in loo adeego sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed taasi si ay u dhacdo marka waa in haweenka Soomaaliyeed ay fahmaan isku duubnidoodu inay dawladnimada wax ku tarayso inay culimadu fahmaan isku duubnidooda inay dawladnimada wax ku tarayso inay abnaawiniintu fahmaan inay isku duubnaadaan inay tahay qayb kamid ah soo dhisidda dawladda in dhalinyaradu ay fahmaan inay yihiin mustaqbalkii dawladnimada Soomaaliyeed in dadkaas Soomaaliyeed oo isku duuban ay fahmaan in haddii ay ka sogaan dawladnimada inay soo dhisaan madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo 275 xildhibaan iyo siyaasiyiin inay ka khaldan tahay haddii aad rabtaan wixii halkan laga sheegayo inay dhaboobaan waa in qof waliba uu qayb ka qaataa doorka uga aadan isaga ama iyada dawladnimada haddii aad aaminsan tihiin in dhaqankeennii fadhi ku dirarka ahaa ama qabyaalada indhaha laga qabsanayay ama dhaqanka wax dumiska dulqaad loo lahaa haddaad aaminsan tihiin inuu dawladnimo keenayo ma keenayo dawladnimadu waxay joogtaa qarnigii 21aad oo u baahan aqoon iyo xirfad u baahan in la isla xisaabtamo
u baahan qorshe in lagu shaqeeyo u baahan in 30 ama 40 ama 50 sano soo socda qorshe ku salaysan lagu shaqeeyo u baahan maanta go'aanka aan gaarnay inaan ogaano inuu wax taraayo ama dhibaateynayo gabadha Soomaaliyeed ee dhalan doonta 30 sano ama 40 sano kadib qofka qabyaaladda ka shaqeeya ama musuqmaasuqa ka shaqeeya wuxuu ku dhex dhuuntaa inta halkan fadhida qofku wax duminayana wuxuu ku dhex dhuuntaa inta halkan fadhiya haddii indhahan annagu aan leenahay aanay kala garanayn xumaanta iyo wanaagga saxda iyo khaladka runta iyo beenta mustaqbalkii la soo dhaafay iyo kan loo socdo wax dhisid iyo wax dumid haddaanan kala garanayn intaas macnaheedu waxay tahay dowladnimo diyaar u nahay in dhab heshiisiin qorshaheed la keeno waxaa iyadana asal ka ah inaan soo dhisno wixii naga dumay saraha naga dumay oo aad aragtaan waxaa la mida quluubteenna gudahooda inta ka duntay in halkaas laga soo dhiso ayaa la mid ah marka in saraha dib loo dhiso qof waliba oo Soomaaliyeed marka cid baa matasha cidda ku matasha marka hore waa inaad la xisaabtantaa cidda mustaqbalka siyaasadda kugu matalaysa waa inaad marka hore adigu ku qiyaastaa waxa halka aan ka sheegayseen inay u qalantay inaanay u qalmin cidda aad rabtaan inay miiska dhinaca kale idinkaga soo fariistaan si waxa aad sheegaysaan dowladnimada ah ay dalka ugu soo dabaalaan su'aalo adag in la isweydiiyay u baahan tahay dhaqankii ahaa marka dowladnimo ayaan meel kale ka sugaynaa annaguna waa iska fadhinaynaa wuxuu u baahan yahay in wax lagu daro waxay u baahan yihiin go'aanadu inay wax ku daraan oo gabdhuhu ay wax ku daraan oo culummadu ay wax ku daraan waxaan soo dhaweynayaa cid walba oo toosinaysa qarannimada Soomaaliyeed sheegaysa dhaliil wax lagu saxo rabta inay dalka dib u dhisto laakiin taasi waa inay ku salaysnaataa inay qabyaalad iyo musuqmaasuq ka madax bannaan tahay waa inay ku salaysnaataa inay dan gaar ah ka madax bannaan tahay oo ay ka shaqaynayso danta guud waa inay ku salaysnaataa inaan fahamsannahay inuu waqti nagu socdo waa inay ku salaysnaataa inaan garanayno sidaan hore idinkugu sheegay meel yar oo laga soo duso oo dowlad laga dhisay inaanay jirayn dariiq dheer oo dhib badan oo buuro leh oo godad leh oo roob ku da'ayo oo in loo adkaysto u baahan ayay rabtaa haddaad rabtaan inaan dunida la tartamo odayaasha iyo wiilasha gabdhaha iyo culummada madaxda halkan isugu timid oo aan anigu ugu horeeyo annagoo ka anba qaadayna sidii aan ku hergelin lahayn waxa halkan aad uga heshiiseen anigoo soo dhaweynaya fikirkii dadkii halkan soo istaagay oo ahaa in la sameeyo duco qaran waan leeyahay inay wasaaraddu ka howlgasho haddana waxaan leeyahay aasaaska iyo tallaabada ugu horeysa dowladnimada oo ah in la qaado waxa ay tahay qof waliba isagu inuu isla xisaabtamo adigu marka hore inaad isqiyaasto oo aad isku qiyaasto ma qarannimaad qutumisaa mase qarannimaad qalloocisaa ma qabyaalad baad ka shaqaysaa mase qarannimaad ka shaqaysaa ma khiyaanaad ka shaqaysaa mise quluubta ummadda Soomaaliyeed in dhisaad ka shaqaysaa isla xisaabtanku waxa uu yahay inta anagu aanan dalka wax u qaban ama aanan u soo istaagin inaan dalka wax u qaban karno marka hore nafteena inaan ilaalino ummadda Soomaaliyeedna xoolahooda aan ugu ilaalino sida ugu wanaagsan oo loo ilaalin karo ugu dambeyntii qabyaaladda iyo qaranka dumay waxaa aasaas ka ah musuqmaasuqa oo meel walba aabba iyo hooyo u ah kulligeen aanu midowno inaan musuqmaasuqa la dagaalno
dowladnimadii Soomaaliyeed oo isu keeni lahayd ummadda Soomaaliyeed soo celin lahayd karaamadeena soo dedeji lahayd dib u heshiisiinta aanu midowno dhexdo xirano dib bay rabtaa aan ka wada shaqeyno waa maatintii